kusoo dhawaada barashada maanta waxaan baranaynaa text formatting. marka ugu horeysa waa inaad casharkaaga haysataa student folderka. qofkan haysanna wuxuu tagayaa barashada .net galaysaa, kadibna download baa ku dhufanaysaa. markaad soo download garaysid student folderka midka lambar 2 okay, midna waa student folder 2, midna waa student folder kaliya. marka kan ugu koreeya soo download garaynaysaa, kadib markaa soo download garaysid waa soo dejinaysaa. then waxaad aadaysaa computer baa galaysaa. computer markaa gashid waxaa kasii galaysaa downloads then waxaad raadinaysaa student folderka meesha aad kusoo download garaysay. okay, student folderka markaad furtid wuu zip garaysan yahay. markaa zipka waa inaad ka saartaa. okay, zipka waa soo qaadanaya. marka qofkii oo ilaabayna casharkaasi dib ugu noqo. then waxaan rabnaa inaan desktopka soo saarno. extract baa leedahay ama waa qabanaysaa banaankaad usoo saaraysaa. click baa siinaysaa, then left clickaad haynaysaa, waa jiidaysaa banaanka usoo jiidaysaa. ama haddii kugu adkaatana extract to baa leedahay, kadibna desktopka tegaysaa, aad dooranaysaa. then okay waa leedahay. saa ka aragtid waa ka desktopku noo soo dhigay, kadibna daaqada waa iska xiraysaa. marka waxaad furaysaa casharkeena format. okay, documentiga format baa furaysaa. formatkaas markuu kuu furan yahay waxaan ka dhex baranaynaa ama practical ku sameynaynaa qoraalka sida fontiga looga bedelo, font size-ka sida loo bedelo, bold ama italic formatka sida loo doorto, underlining-ka sida loo doorto, font color-ka iyo subscript iyo superscript, kadibna format painter. marka markuu saas kugu furan yahay, ciwaanka ugu horeeya online videos kaasaad xareynaysaa. markaad haraysid waxaad ka bedelaysaa fontiga bedelaysaa. fontiga waxaan doortay aniga high tower text baa dooranaysaa. adiga fontiga artida dooran kartaa. kadibna waxaa leedahay size-ka ka bedel. size-ka marka waa 16. haddaa artid waa ku qori kartaa, haddaa artidna dropbox-ka taabanaysaa, kadibna 20gaasaa dooranaysaa. then kadibna qaybtan boldiga click garanaysaa ama control B waa taaban kartaa, shortcut on keyboard. then waa ka then kadibna waa underline garanaysaa. okay, xariijin baa hoos ka marinaysaa adoo isticmaalayo underline kaasi kor yuuda ah. then waa taabanaysaa. kadibna waxaa noogu xigo colorkan ka bedelayna. marka colorkiisa waa blue, waxaan ka dhigaynaa orange baa ka dhigaynaa. orange-ga colorkiisa waa kaa. then orange-gaasi markuu noo dooran yahay, kadibna saasaan ku daynaynaa. waxaa noogu xiga marka ciwaanka waa ka bedelnay, kadibna waxaa noogu xigo paragraphkan aan dooranaynaa. kadibna asigana waxaad ka bedelaysaa size-kaasaan waxaan ka wadaa fontiga bedelaysaa. kadibna size-ka waxaad ka dhigaysaa 14 aa ka dhigaysaa. saas markaa ka dhigtid, then waa ka ciwaanka ugu horeeyo online video waa bedelnay. paragraphkana waxaa ka bedelnay size-ka fontiga waa bedelnay. then waxaan rabnaa in isheeg kuwan kaloo dhan isku mid inaan ka dhigna. marka ciwaankaasaan copy garaysanayna format painter-ka. then ciwaanka kale sidoo kale baan u bedelaynaa. waa kaa marka hore ciwaanada ayaan ka dhigaynaa, then format painter midka kaleente bedel asigana. kadibna qoraalka, marka qoraalkan paragraphka ugu horeeya asigana copy garanaysaa, kadibna formatka dooranaysaa, kadibna paragraphka kale asigana bedelaysaa.
okay midba mar baan sameynaynaa then kan baan haddana asigana sii copy gareynaynaa then paragraphkan kalaan sidoo kale bedelaynaa then saasaa qoraalka loo bedelaa okay waxaa noogu xigo subscript iyo superscript marka waxaa qoraysaa meeshan hoose document viewga paragraphka markaad joogtid meesha ugu dambeysa new theme kan markaad joogtid then hoostiisa waxaad ku qoraysaa h2 waxaad ku qoraysaa h2o waa ku qoraysaa h2o okay h2o gaas markaa ku qortid h2o waxay u taagan tahay waa water waa biyo okay then h2o gaasi 2ga dhexda ku jirta ayaad hareynaysaa kadibna calaamada superscriptiga la dhaho x square kaasi baad taabanaysaa saa ka aragtid 2da kore aaday then colorka ka bedelaysaa ama haddaad rabtid colorkeeda u dayn kartaa so anaga hadda waxaan dooranaynaa bluegaasaan ka dhigaynaa then waa kaa oo mid kalena way jirtaa subscriptigana asigana waa opposite marka meeshii kor aad geysay lambar 2 then hoosa u dhigi kartaa then waxaan isticmaalaynaa markaani qayb kale oo ka bedelan qaybta oo ah sida kasoo qaada a waan qornay kadibna a1 baa leenahay a1 then space waxaan leenahay a2 marka a1 iyo a2 waxaan rabnaa 1ka iyo 2gaas inaan eeda korkeeda aan dhigno waxaan ka wadaa eeda hoosteeda inaan dhigno anagoo taabanayno subscriptiga okay then waa kaa then 2ga haray then asigana sidoo kale then saa ka aragtid a1 iyo a2 hoos yaalaan kanna superscript waaye kanna waa subscriptiga baa loo adeegsadaa okay maxaa kaloo marka aan u adeegsan karnaa sida kasoo qaad kilometer square marka lagu dhaho aad buugga ku qoraysid ama waxyaalaha aad qoraysid aad kusoo dartid kilometer square badanaa waa la qoraa kilometer square then kilometer qoraysaa then 2da qoraysaa marka haddeertaan kilometer square lama dhihi karo maxaa yeele mta square ma ahan marka waa square gareynaynaa sida square u leenahay marka waa inaan anagoo superscriptiga isticmaalayna okay then colorka ka bedel then waa ka then aad u yar tahay size-kan waa bedeli kartaa size weyn ka dhigi kartaa meeshan ayadana sidoo kale size-ka ka bedel okay kuwaana sidoo kale ayagana size ka bedel okay marka size-ka waa bedeli kartaa colorkana waa bedeli kartaa marka adiga dooqaayo ku xiran tahay iyo waxaa sameynaysid waxay yihiin okay marka superscriptiga iyo subscriptiga saasay u shaqeeyaan marka practicalkana ku celceli cashirkana ayaa la iloowin ardayda qaar badana casharada iloobaan arkay marka ma fiicna waxaa baratay inaad iloodid marka waxaa laga rabaa maalin kasto inaad practicalka badiso ma hal maalin kaliya practicalka markasta waa inaad practicalka ku soo celcelisaa